labaatan ku sii sheegay labaatan toban ka hadlaysa labaatan ku sii war madaxweynaha waa dooranay kitaab aan ku dhaaranay aan u yeerno aan xisaabin markuu tagay meesha hal isbaaratal hadda waxay marayaan 19 hadda kor u dhaafeen 19 kordhe أنا مركو حان قبا مدحوينها ويرنو حلبانك هذا اللي داري وحنو شاقي ماليدو كشاقين جري شان أي طبانكون لابي طبانكون أصبح حرطو أفريجيو مدحوينكو حيين كان حوصو دعض لابكون أوصو دعض وار هانتيها مقان هانتيها مقان وزيرك أرمها قد أمني ماليدا ويرنو ونقا ميراه وذيقا أن ويرنو وذيقا أن وحو الدينو أنا أنت سوى قبحلا قفان شقدي ساقونين إدنا وميريكا تنقل عدي قالوا موضوع wasiirka maaliyadda hore waan u aragnay su'aalaha qaarna oo naga qancin waayay sida daraadeed xildhibaanadii ay ku qanci waayeen marka waxaan u baahanahay in loo yeero madaxweyne maxamed cabdiwaar sharafta leh waxaad ogtihiin in madaxweyne maxamed cabdiwaar loo yeero dantiina ku jirto laba siyaabood buu idinku sheegayaa danta kood waxay tahay waxaan ansixinay wasiir ka kooban 57 wasaaradood maanta waxay sii marayaan 60 iyo 62 ay sii marayaan wax idin kala tashtay ama wax idin ka weydiiyay malahan nambarada fasax ayaa nagu soo socda May 10keeda fasax ayaa la galayaa 4 bilood oo mushaar ah idin ka maqan qof maanta aa weydii kartaan wasiirka maaliyadda markuu soo istaago su'aalaha qaarkood markii la weydiiyo waa ogtiin wuxuu leeyahay anigu kama jawaabi karo ama si qaas ah wax uga jawaabaya guddiga maaliyadda waxa idin sheegayaa runta lagama leexdo ha loo yeero madaxweyne maxamed cabdiwaare سؤال شعرتان هل ويديو قدي جمالية دقعانت أي كتاجن محمد داره وحيكون وحبك ما كمان كرنا كنت أسكو شاغنو سؤالها أقبتان أما يديك جو حيو لكن سؤالها إن لو ويديو مدحوين محمد عبد واره واجب يكوتها أسيقا يا الله دورتي ما أنت مقالة البلد وينه طبعا إسبارة يا تالو أسيقا يا مسؤول كأه waayo asiga ayaa waxaan isku qoomadaha iyo majaa isaga xiray runta aan isku sheegno maanta hiiraan waxay taagan tahay in xabad la isku qaato oo la isxabadeeyo 91 ayaan u noqonaynaa walaalayaal waxaa idinka codsanayaa madaxweyne maxamed cabdiwaare ha la waco su'aalaha la weydiiyo su'aalahaas markuu ka jawaabi waayo aan isku noqono xildhibaanadeena anaga maxamed cabdiwaare caqdadu ma qabno mana xasidino laakiin wixii su'aalo oo la qabo in la cadeeyo waa wax waadixa waa waxaan xildhibaan u nahay qof aan kala garbanayno nama jirto waana mahadsantiin aniga waxay ila tahay wasiir meeshan su'aal ka jawaabi karo ma jiro wasiirka maaliyadda u yeerteen wixii meeshan ka dhacwa ogeeyay meeshan waxa waaye waa shabakad isku xiran oo maxaa la yiraahdaa connection weyn ka dhaxeeyo una soo jeesatay in maxaa la dib u dhac iyo burbur iyo halaag state-ka loo horseedo haddii danta ummadda aan wakiilka ka nahay ka shaqeynayno maxamed cabdiwaare madaxweynaha state-ka halkaas ka soo xaadiraan intaas xarna marka madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle maadaama dowlad goboleedkan Hirshabelle shalay markii madaxweyne waare aan u dooranaynay meesha ay joogtay iyo maanta meesha ay joogtay farqad weyn ay u dhacayso waxaan codsanayaa aniga wasiir in loo yeero mar raba mana doonayo waxaan doonayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle in loo yeero aan la xisaabtano waxaan ku sababeynayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan ku sababeynayaa shalay meeshii markaan anaga u dhiibanaynay xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa dooratay 8 nin ayay ahaayeen 7 kamid waxa dhahnay naga raali ahaada maxamed cabdiwaare ayaa madaxweyne u dooranay meeshii gobolkan Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe isku daro Hirshabelle loo baxshay meeshii ay joogtay ka hoos ayay hadda maraysaa waxaan rabnaa asbaabihii keenay shalay marka xilka u dhiibaynay meesha ay joogto inuu ka hoos mariyo inay ka hormariyo ayaa loogu baahnaa inuu ka hormariyo maantana waxay joogtaa inuu meeshii ay joogtay ka hoos ay ka tahay waxa wiligeed aleed waxaan Hirshabelle ka dhicin ayaa ka dhacay oo ah mas'uul in xil inta laga qaado oo yiraahdo igama qaadi kartid oo gaadiid iyo ciidan oo la soo baxo waxaan kaloo aragnaa in isbaarooyin la dhigo Hiiraan la dhigay Shabeellada Dhexe oo aan shalay ka hadlaynay meeshaan la yiraahdo Gamboole iyo waxa la yahay meeshaan la yiraahdo Ceel Geelow oo isbaara la dhigay ayaan wada ognahay waxarnaa maadaama madaxweynaha state-ka oo mas'uul ka yahay asaga inaan la xisaabtano ayaan doonaynaa xaqaan ugu leenahay waana mid dastuuri ah qof loogu hibeysay haba yaraatayna salaan kadib haddii ajandaha gudaha u sii galo anigu fikir ahaanteeda waxaan qabaa horta wasiir waxaa naloo soo diray in 3 wasiir loo yeero horta aad ugu xumahay ajandaha in la soo diro waxaa waaye aad horta ugu xumahay wasiir waxaa loo yeeri karaa markuu wax qabto laakiin wasiir loo magacaabay la taliye wasaaraddiisa dhanba lagu shaqaysanayo wax loogu yeeray hadda fikirkaas ma qabo anigu
waxaan qabaa madaxweyne maxamed cabdi waara meesha ugu sarreyso inuu asaga baarlamaanka hor yimaado taladii wixii baarlamaanka ay qabaanna uu ka tala bixiyo xisaab ha ahaato waxay rabtaba ha ahaato sidaas daraaddeed in xukuumadda madaxweynaha ayaa u sarreeye wasiiradiina qaladaadkoodii way bateen isagoo xukuumaddii ku helinaya qayb ka mida golihiisii wasiirada ilaa iyo madaxweynihii ay wada jiraan ayaa magaaladii beledweyne la xakamayn la'yahay hadday ahaan lahayd amni dhaqaale siyaasad dhaqan iyo political intaba sidaas daraaddeed wixii ay ku dhacday in la weydiiyo waxaa mudan madaxa xukuumadda ugu sarreysa inuu iska soo xaadiriyo xarunta baarlamaanka si uu isagu uga jawaabo madaxweyne maxamed cabdi waare anigu fakarkayga intaas ayaan ku cabiri lahaa ma rabno baarlamaanka Hirshabeelle inuu isqa qabsi galo ma rabno inaan isqa qabsano sidii baarlamaanada qaarkood aan dhuufi isku tufno gacmaha isku taagtaagno xildhibaan kasta wuxuu leeyahay ixtiraam laakiin xildhibaanada waxa u jeeda in la kala jibinayo xildhibaanada gacmaha isqabsadaano baarlamaanka guddoonka baarlamaanka waxaan leeyahay qaladaad fara badan iyo shaqo habsami oo hoos u dhac badan aan ka dareemayo ha qabsada shaqadiisa guddoonka baarlamaanka xildhibaanada shaqadooda ha qabsadaano Hirshabeelle isqa qabsi gasho waa dhibaato madaxweynuhuna in loo yeero ceeb maaha